kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal waa ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka sidoo kale waa idinku dhiirigelinayaa dadaalka aad muujinaysaan ee ku saabsan in aad wax ka fahantaan koorsadan maanta waxaan sameynaynaa muuqaal yar oo kooban oo uga hadli doono unit ka mid ah unityada qeybadan performance managementiga unitkaasna magaciisa waxa weeye waa budgeting waxaa qiyaasayaa labada unit ee ugu muhiimsan inoo dhiman inaan ka hadalno ayuu ka mid yahay kadib waxaa asna muuqaal kale ka sameyn doonaa qaybta maaragtay qaybada magaceeda laga soo minguuriyey oo ah performance management marka performance managementiga waa sida maaragtay loo manage gareeyo ama loo maareeyo waxqabadka maaragtay shirkadda ganacsiga waxyaabahaas budgetkana waa sida maaragtay loo dejiyo saadaasha ama mataqaanaa wixii maaragtay kolley micnaha fahmaysaan budget buu ka hadlayaa marka tobiyada qeybadan labadaas qeyb ah waxaa kaloo ku xigay decision making oo aydan dhowr muuqaal ah ka sameynay oo ah sida go-aan loo qaato iyo qaybta kale oo ah costes markaa leenahay weliba qaybta advancedka because introductionka costeska waxay ku baxeen qeyba ka horreysay oo la dhaho cost management ama management accounting sida guud qeybadan waxay ka kooban tahay 4 qeybood oo maaragtay ayana usii kala baxaan unity kala badan marka already muuqaalo waa ka sameynay labadaas qeybood oo costeska iyo decision making ku saabsan muuqaalkan iyo muuqaal kale oo maybe xigo waxaan sameyn doonaa in aan budgeting ka sameyno haddana laba muuqaal oo kale maybe ayana yaryar waxaa ka sameyn doonaa performance management kadibna waxaa isku dayi doonaa in ayana qeybooyin kale introduction u sameeyo dadaalka hala wado maaragtay higsiga iyo himilada leedihiinna waxaa rajeynayaa in aad dhammaantiin gaari doontaan let's get started budgeting intaanan dhihin maxay u kala baxaan oo types aan ka hadlin horta muxuu yahay budget sidiisaba waxaa weeye narrative yar aan idin sheego ganacsiyada ama shirkadaha ama dowladaha ama xataa shakhsiga wuxuu qorsheeyaa wixii maaragtay soo geli lahaa iyo wixii ka bixi lahaa marka budget waxaa weeye waa nidaam ama waa mataqaanaa qorshe maaragtay aad sameynaysid wixii ku soo geli lahaa iyo wixii kaa bixi lahaa ayadoo mataqaanaa waqtiga soo socdo adigoo hiigsanayo marka maxay tahay faa'iidooyinka maaragtay importance maxay tahay oo budgetska obviously waa qorshe marka qorshe sidiisaba Soomaalidu waxay leedahay qorshe la'aan waxaa ka xun qorshe xun wuxuu ka wanaagsan yahay qorshe la'aan tusaale haddii maanta wax qorshaysatid oo qorshahaas maaragtay uu kaa halaabo waxun baa ka baranaysaa next time waxaa laga yaabaa inaad wixii hagaajisid laakiin haddaad qorshe la'aan ku socotid waxaa weeye way ka xun tahay marka qorshe xun aad dejisatid haddaa qorshaha uu sax ku yahayna waxaa weeye dee waaba sidaa rabtay marka faa'iidooyinka budgeting maxaa waaye kow for control shirkadaha iyo shakhsiyaadka iyo mataqaanaa partnershipska iyo dowladaha dhammaan waxay budgetka u degsadaan in maaragtay ay controlaan maxay controlayaan kow waxay soo gelay inay controlaan labo qarashaadka iyo costiga iyo wixii ka baxay inay controlaan saddex in shaqaalahoodii dadka u shaqeynayay ay ku controlaan waayo haddii maaragtay uu ku degsan yahay in ay lacag 100 milyan ah iska dhahno in kusoo gasho sanadkan maaragtay hadaa qorshaysay oo wixii kaa bixi lahaana ay ku qorshaysan tahay inay noqdaan let's say 80 milyan waxaa ka hadlayna waa ganacsi weyn ama waa dowlad ama goboleed waxay taa ahaato marka waa controleysaa markay bisha koowaad dhamaato waa fiirinaysaa wax kusoo galay bisha labaad waa fiirinaysaa wax kusoo galay haddii bisha sagaalaad la gaaro oo maaragtay meesha 100 aad ka filaysay ay 30 kusoo gashay waxaa fahmaysaa in khasaaro maaragtay in maaragtay qorshahaas uusan hirgelin oo maaragtay waxaa isku dayeysaa marka inaad su'aal iska weydiisid oo ogaatid meesha wax ka qaban lahayn marka isticmaalka budgetka waxaa muhiim waa kow in maaragtay wax ku controlshid labo
waxaa kaloo mataqaanaa budgetka loo isticmaalaa in aad coordination ku samaysid. Coordination waxaa waaye inaad maaragtay aad isku xiriirisid oo dadkii hawsha qabanayeen iyo wixii ay qabanayeen inaad maaragtay coordinate garaysid. Tusaale departments badan ayaa laga yaabaa in mataqaanaa aad leedahay oo departmentiga maaragtay iibka, departmentiga maaragtay manufacturingka, departmentiga maaragtay human resourceka, waxaa kala leedahay qeybo kala duwan. Marka qeybahaas haddii aysan coordinated ahayn oo go'aan isla socda aysan isla wada qaadan oo wixii maaragtay department kasto waxay sameynayso iyo aysan wax isla wada ogyahay aysan ahayn, then waxaa imaanayso in maaragtay hadda tusaale qaybta wax soo saarka haddii aysan la tashanin qaybta maaragtay iibgeynta, waxaa dhacayso qaybta wax soo saarka inay soo saaraan wax aad u fara badan oo maaragtay qaybta iibgeynta oo qaybta saleska aysan awood u lahayn inay iibiyaan. Taas marka waxay sababaysaa in inventory badan oo meesha yaallo oo maaragtay ama expired products ay noqdaan. Marka budgeting ku degan yahay department kasto wixii laga filayo iyo mataqaanaa qarash ku baxayo iyo waxay maaragtay qabanayso waa jaan go'an yihiin. Marka waana coordinate garaysan yihiin, qof ayaan mas'uuliyadaas maaragtay u xilsaaran. Mid saddexaad maaragtay loo adeegsado oo faa'iidada maaragtay ama useska budgetka waxaa ka mid ah waqtiga control, waqtiga coordination. Mid saddexaad waxaan dhihi karnaa performance management, in maaragtay markii oo aad qorshaha degsatay oo resultiga uu soo baxay oo resultiga maaragtay sanadku u dhamaaday oo resultiga uu soo baxay aad isku compare garaysid qorshahaagii iyo natiijadii inaad isku compare garaysid. Markaasna su'aalo meesha ay ka imaadaan oo aad dhahaydo qorshahan noo deganaa haddana maaragtay natiijada saan ayay ku dhamaatay. Marka maxaa waaye sababta arrintan keentay oo su'aalahaas maaragtay ay jawaabahooda mataqaanaa dadka managementiga ama maareynta maamulka u xilsaaran ay wax iska weydiiyaan si maaragtay improvement loo sameeyo. Marka waxyaabahaas oo dhan ayaa loo isticmaalaa budgetka. Waan ka soconaynaa budgeting marka qaybo kala duwan ayuu leeyahay. Qaybahan marka waxaa loo company kasto ama business kasto wuxuu mataqaanaa qaybtuu isaga isticmaalayo uu ku doortaa asagoo ku saleynayo baahiyaha mataqaanaa ama ujeedooyinka ama higsiga uu companygaas leeyahay. Kuwanina waxaa ka mid ah mataqaanaa oo markaas higsiga marka waxaa ka mid ah faa'iido badan buu doonayaa, ma inuu qarash ka doonayaa, ma inuu mataqaanaa control badan sameeyo doonayaa. Marka wuxuu doonayo ayaa waxaa jaan goynayo nooca budgetka uu isticmaalayo. Marka waxaa fiirinaynaa noocyada mataqaanaa ka mid ah budgetingka. Marka kow waxaa ka bilaabaynaa sales budget. Sales budget waxay dhahaan king budget. King budget waxay ka wadaan waa mataqaanaa qaybta ugu muhiimsan oo budgetingka oo wax kasta oo maaragtay oo wax kasta oo la jaan goynayo meesha laga jaan goyo waa saleska. Okay, waa maxay marka sales budget? Forecast waa forecast of expected sales revenue for a period, specific period. Waa qorshe ku saabsan iibka la rajeynayo ama lacagta la rajeynayo inay kasoo xarooto iibka waqti cayiman oo maaragtay soo socda. Tusaale waxaad rajeynaysaa inta aan dhahno units, inta aan dhahno waa price-ka, intana waa totalka aan dhahno. Marka aan dhahno halkan waa year 1 year 2 year 3 sanadkii waa sanadka saddexaad. Sanadka koowaad waxaad rajeynaysaa bisha koowaad bisha labaad bisha saddexaad dhahno oo intana waa months. Marka marka dhahno bisha koowaad waxaa iibisay 100 shay, halkii xabad wuxuu kugu fadhiyay $3 aan dhahno gabi ahaan waxay ku noqotay 300. kan aan dhahno waxaa iibisay 150 intana waxaa dhahno maybe waxaa isbedelay price-ka ama waqtiga maaragtay isbedelo. Marka dhahno labada ku iibisay intana 300 kale, intana dhahno 50 camal ayaa iibisay and then price-kana 5 ayaa ku iibisay intana 150. Totalkana waxay ku noqotay aan dhahno 600 150. Okay, marka haddeer xogtan yartaa ayaa haysataa dabcan xogta maaragtay hadhow marka shaqada ama ganacsiga inuu yahay intaan fiirinaysa, laakiin general idea waxaa waaye kan waa durationka waa waqtigii, kanna waa unitskii, kanna waa pricekii, kanna waxaa waaye totalskii. Marka dhahno bisha koowaad waxaa iibisay 100 unit, waxaa ku iibisay unit price oo intaan ah, intaan ayaa total lacagta haysid. Markaad isku dardartid intaan ayaa maaragtay ii sheegay
kuu soo baxayso. qaabkan ayaa maaragtay marka loo xisaabiyaa oo sanad markay tahay iyo isla marka qorshahan waxaad degsatay ka hor intii maaragtay aanba uusan ganacsiga uusan bilaabanba ama sanadka uusan bilaaban sanadka bilowgiisiba adana marka the actual result waaye marka hadda imaaday actual result markuu imaaday waxaana way isbedeli karaan unitka iibisay isbedeli karo waxaa isbedeli karo price ku iibisay haddii labadan isbedelana dabcan kan uu isbedelayaa halkaas marka waxaa ka dhalan doono kala duwanaanshahaas marka ayay tahay mataqaana in investigation lagu sameeyo oo wax laga ogaado ayana waa ka hadli doonaa laakiin idea guud ku saabsan sales budgetka waa un intaas. kan ku xigo oo isna aan isu daagino waa production budgetka waxaa weeye waa qorshe oo ku saabsan alaabta ama agabka lasoo saarayo waqti cayiman kana qorshahan ama maaragtay jadwalkan ama saadaashan waxay saadaalinaysaa mataqaana ay sheegay cash inflowga ama cash outflowga for specific period qarashka baxay ama qarashka soo geliy for specific period okay anahana marka tusaalihii hore anagoo kasoo raacayno alahana waxaa u baahnayn inaan iibino 750 units 750 units inaan iibina u baahnahay anagoo waxaa u baahnahay wax kasta oo maaragtay aan soo saarno inaysan 750 aysan ka badanin haday ka bataan waxaa waaye alaabtii maaragtay waxay noqonaysaa inay space inaan qaataan ama expire noqoto ama suuq weyn markaa dhahno waxaa qabtaa dhowr product A iyo product B iyo product C iska baa tusaale marka waxaa rabtaa waxa dhan inaad 750 ku geysid mid kasta marka aan dhahno product A waxaa kasoo saartay 200 kan kalena waxaa kasoo saartay aan dhahno 500 kan waxaa kasoo saartay 50 aan iska dhahno marka total 750 ga u baahneed waa soo saartay mid kasta marka unit price ku iibinayso laakiin kan waxaa weeye mataqaanaa waxaa kugu kacayo unit cost waxa la dhaho unit costigan waa total figure hadeer laakiin hadhow waa si kala qaadi doonaa because product kasta marka la sameynayo waxyaabo badan ayaa galo oo mataqaanaa ay sheegay unit costiga totalka weeye marka dhahno kan wuxuu ku kacay 1.5 dhahno kan aan dhahno 3 aan dhahno 3.5 kan aan dhahno maybe 8 maybe aan dhahno 4.8 camal marka waa ku dhufanaysaa kan hadaa ku dhufatid inta waxay helaysaa that's 15 hadaa inta ka saartid 10 that's like 300 dhahno kana hadaa ka saartid ay isku dhufo and then waxay helaysaa total good marka totalkaas good ayaa wuxuu noqonayaa production costigaaga so already waa haysataa production cost oo aad rajeynaysid oo forecast haysataa marka hadhow maaragtay actual resultiga ay heshidna waa ku compare garaynaysaa marka actualkan iyo forecastiga marka aad compare garaysid wixii kasoo baxo oo variance ah ayaa maaragtay haddii uu badan yahayna waa dee mataqaana ay sheegay waa investigate garanaysaa haddii maaragtay wixii ku yahayna waa ayadana waa baaritaan ayaa ku sameynaysaa marka sida guud waa intaa maaragtay production budgetka okay capital budget wax kale maahan waxaa weeye ganacsiga ama companyga ama shirkadda waxay leedahay hadaf waxay leedahay higsi oo maaragtay ku sameynayso long term investment oo maalgashi oo waqti dheer muddo qaadanayo ay ku sameynayso qorshe ayay u baahan tahay marka long term investment wuxuu leeyahay investment wuxuu kala baxaa labo midna waxaa short term oo wax sanad mataqaana iyo maaragtay qaadanayo midna wax sanad qaadanayo tusaale hadeer haddii meel dhisayo oo maaragtay waqti badan ay qaadanayso ama machines la keenayo ama baabuur la soo iibinayo wax long term investment oo maaragtay lacagtoodii aysan hadda asag soo laabanaynin laakiin muddo ay qaadanayso inay lacag soo celiso waxaa dhacaysa marka inaad maaragtay aad qorshe u dejisid oo qorshaas mataqaana ay sheegay aad dhahdid bisha koowaad bisha labaad bisha saddexaad then bishan koowaad maybe waxaa soo iibsatay motor vehicles baabuur ayaa soo iibsatay waxaa soo iibsay bishan labaad waxaa usoo iibisay maybe machine ay u baahan yihiin
bishaan saddexaad maybe waxa uu iibisay let's say maxaa kaloo maybe dhul ayaa soo iibsatay land ayaa iibsatay ama building aa samaysay marka waxna waa long time soo qorshe ayaad u dejinaysaa mid kasta qarash iyo qiimo ayuu kugu fadhiyaa marka qarashkaas markaad isku dardartid waxa kusoo baxayo total budgetkaaga oo sanadkaas ama bishaas ama quarterkaas wuxuu rabo ha ahaado ee kusoo baxayo marka quarterka markuu dhamaado isla sidii waxaad samaynaysaa actual resultgaagii oo maaragtay wixii dhabta ahaa maaragtay aad soo iibsatay maybe kan waa soo iibsatay kan maybe waa weysay maybe kan waa soo iibsatay marka totalka compare garanaysaa wixii u dhexeeyo ayaa su'aal iska weydiinaysaa wixii cashar maaragtay muhiim ah ka baranaysaa marka intaas way ka badan yihiin budget typeska laakiin waa introduction waxa samaynayo marka waxaan rajeynayaa in maaragtay aad fiirin doontaan buugagta aad ka heli doontaan haddii aad u baahantiin maaragtay meel aad ka heshaan mataqaanaa noteska oo badan comment igula soo wadaaga waa idin wadaagi doonaa mataqaanaa meelo qaar oo internetka ayagoo free ah ka heli kartaan inkastoo habboonta inaad soo iibsataan laakiin haddana anaga waxaa maaragtay way jiraan resource oo free ah marka aan usoo laabano budgeting techniques soo kuwaas waxay hayeen noocyada budgetska haddana waxaa waaye technique marka waxaa weeye qaabka loo sameeyo oo qaabka maaragtay loo xisaabiyo marka guri dhisaysid waxaa jiraan guryo kala duwan iyo qaab guryaha loo kala dhiso marka budgetkana qaab waxaa jiraan budgetyo kala duwan iyo qaabab budgetyadaas loo diyaariyo oo kala duwan okay mid kastana waxaa lagu doortaa baahida mataqaanaa oo organizationka markasta taas ayaa ku hagayso okay mid koowaad waxaa la dhahaa incremental budget ereyga incremental waxaa laga wadaa wax oo increasing ah oo waxa isbedel waxa waaye waa budget ama qorshe ku salaysan isbedel tusaale sanadkii hore budget ayaa isticmaashay oo u isticmaashay starting point tusaale qaybta oo saleska camal marka keeday sales kasoo wada camal ayaa starting point ku ah oo dhahna hadeer this your sanadkii koowaad waaye kana dhahna sanadkii labaad waaye marka sanadkan koowaad dhahno waana sales budget waxa ka hadlayno tusaale marka dhahno 1 2 3 bil camal laba bil ku qabno marka labadan bilood dhahno bishan waxa iibisay 100 bishan kaleetan waxa iibisay 50 kan waxa ku iibisay 1 kan waxa ku iibisay dhahno maybe 2 so kana waa 100 kana waa 100 okay now that's mataqaanaa budgetkaagii oo sanadkii hore hadda marka incremental budget aad diyaarinaysaa budget oo isbedelaad diyaarinaysaa marka inta haddana soo bilaabi lahayd waxaan fiirinaysaa wax isbedelay so sanadkan waxaa leedahay sanadkii hore 100 ahaa hadda marka maxaa isbedelay sanadkan waxaa leedahay waxaa isbedelay maybe 120 hadana okay hadana sanadkan saleska wuxuu noqday 300 maadaama saleska uu 300 noqday waxaa dhashay sanadkii hore 100 ahaa hadda isbedelka maaragtay ii shay wuxuu noqday 300 camal marka isbedelkii ayaa meeshan kaaga soo baxay oo ah let's say 200 difference u dhexeeyo and then waxa laga yaabaa inuusan price isbedelin oo pricekiisa yahay okay kan kaleeto waxa laga yaabaa in maaragtay uusan isbedelin oo mataqaanaa let's say uu ahaa 150 oo ahaa awal haddana 100 camal noqday marka waa un kala jaraysaa so wixii ku ziyaaday baa maaragtay wax xisaabinaysaa and then adahana price-ki wuu isbedelay meesha looga ahaa wuxuu tegay 3 marka price isbedelin sidiisa ayuu ahaa iska dheh oo focus-ka saarna si aad simple looga dhigno units-ka gelin isbedelin marka waxaad samaynaysaa waxaad ku salaynaysaa oo mataqaanaa isbedeladan maaragtay oo ku imaadeen units-ka marka that's incremental budgeting waxay dib ugu laabanaysid waxa isbedelay baad dib u xisaabinaysaa okay zero based budgeting si maaragtay ka cad bixinta waa budget ku salaysan eber okay macnaheedu waxa waaye ganacsiga sanad kasto wuxuu leeyahay budget marka waxa dhacdo departmentska businesska waxa dhacdo
qaybta productionka qaybta saleska mid kasta wuxuu leeyahay maaragtay wuxuu leeyahay budget u degan oo sanadkii hore ah oo maaragtay sanadkaas hore mataqaana ay sheegay wixii maaragtay kusoo siyaadey un sanadkan ay sameeyaan marka taas waxaa laga yaabaa ganacsiga inuu qaladaad badan uu sameeyey ama mataqaana waxyaaba qaar ay overspending ku sameeyeen si marka wax looga hortago ayaa waxaa this idea of zero based budgeting loo asaasay waana waxa weeye department kasto wuxuu kasoo bilaaba budgetkooda meel eber ah ganacsiga qayb kastoo ganacsi kamid ahna oo department kastana waa inay justify gareeyaan waa inay maaragtay marmarsi u sameeyaan dhammaan expensiga ay mataqaana soo dalacanayaan periodka soo socda okay maxaa laga wadaa tusaale qaybta saleska ayaa maaragtay markuu sanadkii bilowday waxaa layidhi budget waxaa haystaan oo zero ah qaybta maaragtay production waxaa layidhi budget waxaa haystaan zero ah qaybta oo maaragtay marketingka camal ayagana waxaa layidhi waxaa haystaan budget zero ah budget zero marka leeyahay waxaa laga wadaa qolo kasto waxaa laga rabaa expensiga maaragtay ay soo dalacanayaan inay sabab u yeelaan oo maaragtay keliya ay list gareeyaan waxyaabaha maaragtay muhiimka u ah ganacsiga wixii aan muhiim u ahayn maaragtay waa la fiirin and then waa laga saaray listiga so hadda sales kale maxaa muhiim ah sales kale waxaa muhiim ah mataqaana ay sheegay advertisement inay sameeyaan waxaa muhiim ah mataqaana maybe transportation inay sameeyaan hadda markii la fiiriyo wixii aan muhiim ahayn waa laga tiriyaa meesha and then wax maaragtay oo listiga lagu soo waxeeyey oo keliya oo isla qaatay unbaa maaragtay lagu saleynaya oo lagu jaangoynayaa budgetka so zero based budgeting waa sidaas inta badan waxaa loo adeegsadaa in maaragtay wasteful spendingka lagu kadgareeyo oo maaragtay waxyaaba maaragtay khasaarada keenayo lagu soo afmeero okay kan waxaa la dhahaa activity based budgeting waa budget oo asna lagu diyaariyey asoo lagu saleynayo company activitieskiisa iyo resourceka uu u baahan yahay in uu perform gareeyo sida ognahay markii uu company wax soo saarayo oo maanteeto product la sameynayo productkaas activities badan qayb qaataan activities waxaa kamid ah maybe waxaa kamid ah assembling waxaa kamid ah maybe waxaa kamid ah ii sheegay aan dhahano mataqaanaa maaragtay machining oo machining wixii la marsiiyo aan dhahana wixii maaragtay inoo maaragtay la jarjaro mataqaanaa wixii la baakadeeyo marka activities badan ay jiraan marka budgetkan waxaa lagu saleeyaa according to activitieska activity kasto wixii ku baxayo ayaa maaragtay la budget gareeyaa aan saasa maaragtay asna lagu arag gareeyaa now waxaa imaanay طبعا intaas techniques way ka badan yihiin mid kastana waxay wadataa calculation haddii aan waqti u helno waa samayn doonaa some of the calculations kan marka waxaa la dhahaa budget variance waa meelaha mataqaanaa oo maaragtay imtixaanka techniqueska u jecel yahay examinerka inuu su'aalo badan u keeno waana meesha mataqaanaa lagu baaro mataqaanaa comparison lagu sameeyo isbedelada saadaasha iyo actually wix dhacay marka actual result waxaa often lagu compare gareeyaa budget resultiga si loo identify gareeyo difference u dhexeeyaan ama variance iyo difference waa isku mid marka wixii saadaasha aad adeegsatay ayaa inta ku qoranaysaa intan waxaa qoranaysaa actualka wax kugu soo baxay marka labada compare gareyso qaarna way ka badanayaan qaarna way ka yaraanayaan kuwaasaa marka su'aal iska weydiinaysaa oo for everything marka haddii sales uu ahaa saleskaas maaragtay waxaa compare gareynaysaa the budget sales and the actual sales kadib waxaa kusoo baxay variance wuxuu noqon karaa laba mid oo keliya variance oo mataqaanaa ii sheegay hoos ayuu hadli doonaa marka laakiin laba buu noqon doonaa variance oo adverse ah ama variance oo maaragtay favorable ah marka adverse variance waxaa laga wadaa variance oo maaragtay negative ah favorable waxaa laga wadaa mid oo positive ah okay markii la analyze gareeyo differencegan these variances can be analyzed markii la analyze gareeyo waxaa la determine gareeyaa oo la ogaadaa sababaha difference keenay iyo in la sixi karo oo ficilo lagu sixi karo loo baahan yahay favorable variance waa mataqaana ii sheegay waa isbedel oo wanaagsan wuxuu dhacaa markii resultiga dhabta ah ay ka wanaagsan yihiin resultiga saadaasha ahayd sidaas darteed kharash badan ayaa ama u soo xarooday ganacsiga
ama waxaa la yareeyey qarashaadka baxay. Adverse variance ama mataqaanaa isbedel oo negative ah ama aan wanaagsaneyn wuxuu dhacaa markii actual resultiga oo resultiga dhabta ah uu ka xun yahay ama uu ka hooseeyo ama si mataqaanaa negative ugu duwan yahay resultiga oo maaragtay la budget gareeyey oo la saadaaliyey. waxaana mataqaanaa sadaal u ah haddii maaragtay qarashka soo galay uu ka yar yahay ama haddii maaragtay costigaada uu badan yahay. Tusaale waxaa saadaalisay in mataqaanaa ay kusoo galayso 100 aan dhahno, haddii 80 kusoo gasho differencega waa 20 marka waa adverse because waxaa saadaalisay inay 100 kusoo gasho haddana waxaa kusoo gasho 80 marka actualkii oo kusoo galay iyo budgetka markaa compare garaysid maaragtay variance uu kusoo baxay wuxuu noqday 20 adverse ah. Marka 20 waa isweydiinaysaa waxaa is leedahay waayo mataqaanaa actualka uu 80 noqday oo 100 noqon waayo ama uga badan waayo. haddii bilcagsi maaragtay uu ahaa 80 budgetkaaga uuna 100 kusoo galay hadda 20kan wuxuu noqday favorable. marka waxaa leedahay qorsheena wuxuu ahaa 80 inuu soo galo 100 ayaan soo gashay maxaa isbedelay oo 100kan uu soo galay. su'aalihii marka aad ka jawaabtid waxay wax u tarayaan businesska oo maaragtay iyo managementiga in maaragtay go'aan wanaagsan ay ku qaataan. Now budget control waxa weeye mataqaanaa ii sheegay markii la diyaariyo budgetka oo la implement gareeyo waa in la monitor gareeyaa, waa in isha lagu hayaa oo lala socdaa, waa in la controlaa oo maaragtay su'aal lagu mataqaanaa ii sheegay lagula socdaa si loo xaqiijiyo in resultiga dhabta ah ay maaragtay consistent ay leeyihiin oo ay la socdaan budget resultiga. arrintan waxay involve garaysan tahay oo la xiriirtaa inaad mataqaanaa aad ogaatid difference u dhexeeyaan varianceska ana qaadid ficilo aad ku saxaysid differenceskaas si resultiga dhabta ah iyo budgetkii maaragtay isku meel aad isugu keentid. gabagabeyn mataqaanaa ii sheegay topican oo say performance managementiga budgetingka waa topic maaragtay aad u ballaaran oo u baahan inaad fahantid noocyada kala duwan ee budgetka iyo techniqueska iyo variancega iyo controlka inta imtixaanaadka ka yimaadaan mid kastana wuxuu wataa calculation oo maaragtay ii sheegay level sare because beebadan waa beebo oo skill ah marka beebo skill in leeyahay beebooyinka maaragtay oo SCCA-da waa 3 qaybood. qaybta koowaad waa knowledge based waa maaragtay qayb ku saabsan aqoon, kanna waa xirfad oo wixii aad qaban lahayd haddii maaragtay hadda maanteeto position oo performance management maaragtay u joogtid xisaabeed aad tahay waxyaabaha wax daily aad qaban lahayd marka waa xirfad qaybtan. and then qaybta kale waxaa jirta ayadana strategic la dhaho oo ayada mataqaanaa ii sheegay long term goalska oo company waxaas maaragtay ka turjumayso. marka beebooyinka 3 qayb ka kooban yihiin dhammaantood waa isku dayi doonaa inaan introduction u sameeyo intaas ayaan kusoo gabagabeynaya. aad ay u mahadsantihiin waana ku mahadsantihiin daawashadiina waa ka xumahay waqtigii aad buu dheeraaday mar haddii maaragtay muuqaaladan bilowdeed waxaa arkaysaa adoo half an hour ka baxay laakiin maaragtay waa intaas ayaan kusoo gabagabeynaya waa ku mahadsantihiin daawashadiina mar kale fadlan asxaabtiina la wadaaga waana idin salaamaya in badan. asalaamu calaykum.